salaamullaahi calaykum dhammaantiin daawadayaal meel walba aad joogtaan iyo si walba muuqaalkan idiin soo gaaro halkan sida tooska nagala socotaan waa Saafi Media. Qodobada aan idiin soo gudbin doona waxaa ka mid ah madaxweynaha Koonfur Galbeed oo magacaabay wasiiro. waxyaabaha kale aan idiin soo gudbin doona waxaa ka mid ah wasiir hore ee gaadiidka iyo xukuumadii hogaaminaya madaxweynihii hore Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo ka dhawaajiyay arrin si weyn hadal hayn u abuurtay. Talo maxay tahay warbixin ayaa idin kaga haynaa. Kooxda Al-Shabaab oo qarax la beegsatay xildhibaan ka tirsan Kenya iyo ilaaladiisa. Haddana ku soo dhawaada qodobadeen iyo faahfaahsan. Baydhabo iyo talaabooyinkii ugu dambeeyay ee lafta gareen. Marka laga hadlo xaqiiqda markii la doortay madaxweyne lafta gareen ee maamulka Koonfur Galbeed wax weyn buu ka bedelay. waxyaalaha cajiibka leh waxaa ka mid ah in xiriir fiican la lahaa madaxweynihii hore Maxamed Cabdullaahi Farmaajo. waxaa lagu xantaa tigitaankiisa maamulka inuu kaalin weyn ku lahaa madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo. balse waxaa la oran karaa waa maamul si wanaagsan ugu faa'iideystay xiriirka uu la lahaa dowladda federaalka Soomaaliya. garoonka weyn ee magaalada Baydhabo ayaa si weyn loo qaabeeyay, loo dhisay oo loo qurxiyay. sidoo kale waxyaabaha ugu weyn waxaa ka mid ah wadooyinka gaar ee magaalada dib u dhis lagu sameeyay. garoonka magaalada Baraawe isna waa la dhisay. saddex gobol ee Baay, Bakool iyo Shabeellada Hoose caasimadahooda ama magaalooyinkooda waxaa loo dhisay madaxtooyo. horta Baraawe caasimad gobolka Shabeellada Hoose maahan. caasimada gobolka Shabeellada Hoose waa marka cadeey, laakiin Baraawe waa magaalo xeebeed istiraatiiji ah. sidaa awgeed waxaa la doortay in noqotay magaalada caasimada waa maamulka Koonfur Galbeed. nasiib wanaag weli maamulka uma guurin oo qorshahaas waa u socdaa. magaalada Xudur ee xarunta gobolka Bakool qasri weyn ayuu ka dhisay madaxweynaha maamulka Koonfur Galbeed Cabdicasiis lafta gareen. oo maanta hadduu madaxweynuhu halkaas tago waxa uu helayaa guri hawsha uu ku wado maamulka uu leeyahay aanu haba yaraatee wax dhibaato aysan ka jirin. wasiirada uu magacaabo madaxweynaha maamulka Koonfur Galbeed ayaa gaarayay ilaa 5 wasiir oo bedeli doona wasiiradii hore kadib markii ay ka mid noqdeen xildhibaanada golaha shacabka ee baarlamaanka dowladda federaalka Soomaaliya. wasiirada la magacaabay ayaa kala ah Dr. Cali Cabdi Macalin oo loo magacaabo wasiirka wasaaradda qorsheynta ee maamulka Koonfur Galbeed. 2 Cabdulaahi Xaaji Xasan loo magacaabo wasiirka arrimaha gudaha Koonfur Galbeed. 3 Maxamed Isaaq Cabdi loo magacaabo wasiirka amniga maamulka Koonfur Galbeed. 4 Xasan Cabdi Nuur Aadan loo magacaabo wasiirka gaadiidka cirka iyo dhulka maamulka Koonfur Galbeed. 5 Sandere Maxamed oo loo magacaabo wasiirka wasaaradda xanaanada iyo xoolaha maamulka Koonfur Galbeed. qodobkeena labaad daa gudubno wasiirkii hore ee gaadiidka iyo duulista dowladda federaalka Soomaaliya mudane Maxamed Cabdullaahi Salaad Omar oo ayaa wareysi siiyay warbaahinta ayaa ka hadlay xaaladda dalka gaar ahaan dhismaha dowladda cusub. Omar ayaa yiri anigu waxaan ahaa wasiir 4 sano buuxda aan ahayn xildhibaan. sidoo kale waxa uu sheegay in inta badan xubnaha baarlamaanka soo gala golaha wasiirada loo keenay sida ay dowladda u difaaci lahaayeen sida uu hadalka u dhigay. waxaa jira wasiiro xildhibaano 5 sano ka badan meesha soo taagnaa waxay qabteen aadan garanayn kaliya in ay dowladda ka difaacaan baarlamaanka loo soo gashay. qodobkeena saddexaad maanta ka hadlayna waxaa ka mid in Al-Shabaab ay qarax la beegsatay xildhibaan ka tirsan Kenya iyo ilaaladiisa.